أنا أقول عن كذا هاي دبقان كذا بروف أديك أنا ولي عسكري هاي جد كتاجنا صبح إلى كان والو قرحيها فويدا أنا ولا قرحيها ولي على دبعت أنا كجري أسكرت وإني براروان إيه وقاعدة ما كيوش قيها أنا توجدا شعب كصومالي دي هو يوين كودن أنا القدرن ورا يستجمع ما يسيان لعكت أسمع لسيو عسكرية ومالك تلقرحنا لو بقولوا ضرر على سيا أول عنشور ضرر عسكرية أي ماذا لما ورقة هذا يكان أوتي وحيقولنا هاي حلوانة وقوي كصومالي ودكني هاي قري أو أي اللي يهندول أو دكيا لو قالوا جين كذا وتعالوا سنة كهرة وحالي عنشور $20 oo ah shatiga lahaanshaha guriga 2023 hadda daraad waxa la keenay dhahay warqadan $53 ku qoran tahay $30 waa askari 200 qaato oo qoys leh labadii qolo jiingada lahayd ogol inuu canshuurta sanadka dhiibo hadana 200 oo canshuurta laga jaro uu ka dhiibo $20 waxa la yiraahdaa waxa ku dartaa 30 kale 30 kaas yaa la siihaa nina magac loo bixiyay kambaniya loo dhigay waxa la yiri shacabka lacag lagu dul saaraa shacabka ma alaab laga ganacsadaa shacabka lacag lagu dul saaraya ka soo qaado inay iska diidaan askarta dadka masaakiinta ayo kale inay iska diidaan mid kale canshuur aan baarlamaanka la hormari lama kordhi karo sharci maahan shacabka Soomaaliyeed ana u sheegayo baarlamaanka u sheegayo ha iska diidaano canshuur lama kordhi karo lama saari karo dekada wax ka jira ognahay waxa xafiisyada dawladda ka jira ognahay ayagoo riboodan oo adduunyadana waa tuseena baarlamaankan waa keenayna saxaafadana waa la wareegaynaa waa u sheegaynaa waa ku wareejiyeynaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatada laga daayo shacabka Soomaaliyeed oo adinka dhibka adinka isku hayaane u diyaar garoowe inaad dhibaatadan iska dul qaadi hal horta inay qoonna u maleeyay meel banaana oo barxada oo la isugu yimiday oo la isu wada jeedo fiqsiga ka soco kara muxuu yahay ayagoo hadda waxa dhacayo in nimanka ay leeyihiin argagixiso waaye oo wadankay qarxinayaan iyo xukuumadii isku dhex milmayso daraad waxa ka dhacay shir hotel Jasiiro loogu yeeray inay culimada Soomaaliyeed isugu timiday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta shirkaas qabanaysay waxa diiday dhammaan wasaaradii awqaafta arrimaha diinta oo maamul goboleedyada ayagoo dhaliilo sheeganayo looma joojin shirka waa iska socday ku kale oo kaas bedelkiisa magaalada dhinac kale oo kamid ah ayuu ka socday nina ka hadlay wuu istaagay wuxuu ku yiri xildhibaanada iyo dadka dawladda iyo waxa socda diido oo ka aragti duwan waa la dilayaa horta wasiirka awqaafta arrimaha diinta oo aniga guddigiisa aan ku jiro waxaan ka rabaa ninkaas iyo ciidanka Soomaaliya inay horta ninkaas soo qabtaan baarlamaanka la hor keeno haday dhici weyso ninkaas la soo xiri waayo wasiirka asaga la rabaa inuu arrinkaas ka jawaabo la'aan asaas soo casuumay ninkaas mid kale ninkii shalay banaanka jooga ee lahaa xildhibaanka waa la dil karaa naagtiisa waa la dil karaa ilmihiisa waa la qarxi karaa maanta haddana soo dawladii haddana inta ka dhahay xildhibaanka waa la dil karaa maxaa waay dawladnimada oo la raadinayo dawladda xukuumadda iyo madaxweynuhu u horeeyaan ninkii sheekh isku sheegay hotel Jasiiro dhexdiisa ka hadlay wixii uu sheegay oo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo wasiirkeedu ay soo casuumeen hadana tilaabo laga qaadin oo la keenin culimada wadankan joogta al-sunna wal jameeco iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wadankan wax ka soo socdo inay waxa hadda loo jeedo wax ka badan oo khatar ay ka soo socdaan waxaan kale rabaa inaan ka hadlo suuqa Bakaaraha waxa ka jiro dhibaato ka jirto hooyooyinkii ilmahooda liida ku qarxay lagu qarxiyay oo murugadii hayso inta loo taga cagafyo loo geeyay oo la leeyahay niman siyaasiyiin iyo dad ganacsataa waxa la siiyay suuqi hilibka lagu gaday hooyo neefay qasho ilmaheeda ka biilaysay oo dhibaatada intaas la eg haysatay oo ilmaheeda qaar kamid isbitaal ku jiraan in nin buruuf wato guri mukayf la degan oo dabaqa in la yiraahdo war aniga waxaan sheegay ha sheegine dadkan shacabka cagaf lagu galiyahay qaado dhulkooda hooyooyinkii oo meesha baahan oo dhulkoodii la siinayo niman baabuur wato oo mukayfiya oo rabo mustaqbalka wadanka inay wax ka noqdaan dhibaatada wadankan dhacayso dhan horta waxa ka masuula dadka shacabka gobolka Banaadir degan sababtu maxay tahay shacabkan gobolkan Banaadir horta cid iska ma lahan maalin kasta madaxweynaha yimaado wuxuu ku kaambeyn gareeyaa waxaan dhisayaa maqaam gobolka Banaadir wax dhisaya ma lahan shalay waa la ogaa dawladii hore waxay lahayd waxba ansixiyay ma jirto madaxweynuhu markuu banaanka joogo shaqada ugu horeyso qabanayo inuu xuquuqda gobolka Banaadir uu sheegay hadda waxa jirto dastuurka qodobka koowaad ugu jirtaa gobolka Banaadir arrinkiisa waa laga saaray shana la geeyay haddana waaba la joojiyay dastuurkii oo dhan sababtu maxaa waaye waa loo guslaawe waa gobolka Banaadir cid le ma lahan marka waxa la diidayaa caanaha sida xaaraanta looga maalaayo cid sheeganayso oo la xisaabtamaysa in la helo
شعب كان قبل كبنادر ودن كان وحقوق بها هرت كعضون شعب ونسياسي دولة كريحينين ونشيق دولة كريحينين وقناعس دولة كريحينين ودت كدلين يردا ودن كان وحقوق برتي والنجو هر كعينو عن مدحضنا قلنا هاي دت كوحقوق برتي ودن كان وحل سومر وقتين أيضا مقاومة على سومري هجامي كوحيدا سومرني وحن سومرنا فرجنا وحكستو إن مركب maanta dad iska socdo inta noo yimaadaan ee maan ilaahay keeno qandaraasyo lagu kor sameeyo la yiraahdo qofkii qeyliyay shacabka Soomaaliyeed canshuur lagu kor saarayo kambeyn soo sameeyay magac soo baxso waxaas ayaga ka raaliya waa inay iska diidaan waxa ka dhacay Senegal oo u jeedayeen wixii Senegal ka dhacay iyo Nairobi wixii ka dhacay xamar ka dhicin dadka baahiya dilay mid kale laba cadow ay u dhaxayaan dadkan mid qarxinayo leenayo mid baahi ku leenayo maxay u kala duwan yihiin oo farqiya ninka baahi ku dilay kan ku qarxiyayo dil way waxba isma dhaamaan xukuumadan fashilantay oo ummadana inay ka hortagto rabin shacabka Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir waxa uu sheegaynaa annaga horkaceynaa ha iska ciiriyaano hana iska diraano tan suuq bakaara waa ku soo celiyaa 8 dukaan ah waxay xiran yihiin November ilaa hadda maxkamadda gobolka Banaadir ay xiran yihiin waa la diiday dacwada in inta la qaado dadka la dhageysto dadkaana kireystayaal waaye lacag laga shubo laba sano inay shaqeystaan dacwo madaniya waaye cid loo xukumay la macaamilayaan ayaga wax ka galma laba dad kireystayaal 8 qoys 9 bilood in ku dhow ee ilmahooda biilaan yihiin dababkooda dansan yihiin 150 kale hadda hilib gadaaya waxa la rabaa in dababkooda la damiyo marka maxay sugayaan shacabka inta guryaha ayaga la gato oo ilmaha iyo la gatay sugayaan kaliya laga baxo wax kale hadda u dhimanay sugayaan male dadka suuqa bakaara oo kawaanku waa ku celiyaa aniga suuq bakaara ku dhashay maalinta aqliga la ilaa hadda meesha hilib lagu gadaaya hadda siyaasi inta la soo siiyo haduu ku fakaraayo waxa u sheegaynaa qofka bini aadanka xoolihiisa iyo maalkiisa ilmihiisa doo ka tago oo lagu hor dulmiyo diyus waay inay ka tagin ku dhintaan siyaasiga la sheegay dadka soo hilibka gadaay bal inta yimaadeen askariga meeshaas inta tago dadkaas ka baxa dhahana waa la xisaabtama oo askartana hooyooyina dhalay waa inay horta waxaas ka fiiriyaan hooyooyinkiisa soo koriyo hilibka gadaay hadii nin proof foto idin diro oo idin dhaho hooyooyinkiina hilibka gadaay xabadeeya buriya ala dhibaatadana ku jiray askarta waa inay baraarugaan ay ogaadaan nimanka ay u shaqeeyayaan oo tuugada shacabka Soomaaliyeed iyo hooyooyinkoodana aan lagu dirin waraa ay siga ma siiyaan lacagtaas ma la siiyo askariga oo maalin kasta la qarxinayo $200 la siiyaa oo la canshuuro daraad askari ay yimaado laba warqadood oo ii keen oo watay wuxuu igu dhahay xilbaane waqooyiga Soomaaliya degan yahay guri oo ayaga leeyihiin dhul oo degan yahay laba qolo jinkada ugu taalo sanadkii hore waxa la canshuuro $25 oo ah shatiga lahaashaha guriga 2023 hadda daraad waxa la keenay dhahay warqadan $53 ku qoran tahay $30 waa askari 200 qaato oo qoys leh labada qolo jiingada lahayd ogol inuu canshuurta sanadka dhiibo hadana 200 oo canshuurta laga jaro uu ka dhiibo $20 waxa la yiraahdaa hadana waxa ku dartaa 30 kale 30 kaas yaa la siihaa nina magac looga bixiyay kambaniya loo dhigay waxa la yiri shacabka lacag lagu dul saaraa shacabka ma alaab laga ganacsadaa shacabka lacag lagu dul saaraya ka soo qaado inay iska diidaan askarta dadka masaakiinta ayo kale inay iska diidaan mid kale canshuur aan baarlamaanka la hormari lama kordhi karo sharci maahan shacabka Soomaaliyeed ana u sheegayo baarlamaanka u sheegayo ha iska diidaano canshuur lama kordhi karo lama saari karo dekada wax ka jira ognahay waxa xafiisyada dawladda ka jira ognahay ayagoo riboodan oo adduunyadana waa tuseena baarlamaankan waa keenayna saxaafadana waa la wareegayna waa u sheegayna waa ku wareejiyayna ummadda Soomaaliyeed dhibaatada laga daayo shacabka Soomaaliyeed oo adinka dhibka adinka isku haayaan u diyaar garoow